subaxyada ka mid ah ayaa wiil jaamici ah hurdada ku soo daahay wuxuuna jeebkiisa ku arkay inuusan lacag ugu jirin marka laga reebo $10. waxa uu go'aansaday inuu ku gato cuntadiisii ugu dambeysay maadaama uusan waxba haysanin kadibna meeshaas uu geeridu ku sugo waddo kale uma furneen oo aan ka ahayn in uu tuugsado isaga oo miiskii dul fadhiya raashinkiisina sugaya ayaa hal mar indhihiisu waxay qabteen oday da'ah iyo wiil la socday oo xaggiisa u soo socda wuu yaabay intaas ka bacdi odaygii iyo wiilkii la socday ayaa caawin weydiistay oo yiri waxaan u baahanahay cunto aan cunno waxayna u raaciyeen in muddo 3 maalin ka badan wax raashina aysan cunin wiilkii jaamiciga ahaa misna shaqo la'aanta ahaa waxa uu fiiriyay diifta ka muuqata aad ayuuna uga xumaaday sababtoo ah jirkooda aad ayuu daciif u ahaa lafaha jirkoodana waa ay muuqdeen indhahoodana murugo fara badan iyo baahi ayaa ka muuqatay sida daraadeed waxa uu siiyay cuntada asaga uu sugayay ninkii duqa ahaa ayaa u duceeyay wuxuuna alle uga bariyay wiilka inuu helo hanti fara badan barwaaqana uu ku noolaado waxayna hadiyad ahaan u siiyeen shilin da'ah maadaama uu caawiyay wiilkii shaqo la'aanta ahaa ayaa ugu jawaabay idinkagama baahni wax duco ah ee Allah idin barakeeyo intaas kadib jaamiciga shaqo la'aanta ahaa waa uu baxay waxa uuna aaday buundo ku taalay magaalada banaankeeda asagoona shaqo haysan lacagna haysan xitaa cunto aan haysanin waxa uuna go'aansaday inuu meeshan iska seexdo buundada hoosteeda ilaa uu ka dhimanayo isaga oo nasanaya oo isla xagee tala ka bilowda ayaa wuxuu arkay joornaal waa uu soo qaatay waa uuna aqriyay waxaana ku qorneed xayeysiin la raadinayo shilin da'ah qiimihiisana uu aad u sareeyo wuxuu go'aansaday inuu nasiibkiisa tijaabiyo una qaado shilinka waxa uuna geeyay adreeska meesha ku qornaa si uu shilinka meesha looga baahan yahay u geeyo markii uu tagay milkiilihii aad ayuu u qeyliyay wuuna farxay maadaama shilinka da'da ah qiimihiisa uu ahaa $1 milyan wiilkii jaamiciga ahaa waa uu rumaysan waayay nasiibkiisa sida daraadeed waxa ay ku noqotay arin lama filaan ah lacagta uu helay waxa uu soo qaatay lacagtii asagoo u raadinaya ninkii da'da ahaa iyo wiilkii yaraa waxa uu yimid milkiilihii maqaayadii ay wax ka cunayeen markuu meesha ka waayay waxa uu weydiiyay aawa odaygii iyo wiilkii meeshan ka cunteynayay ayuu weydiiyay milkiilihii maqaayadda ayaa ugu jawaabay ma aqaano waa ay baxeen laakiin waxay iga tageen waraaqadii ayuu soo qaatay waa uuna aqriyay waraaqadana waxa ku qorneed sida tan qoraal cajiib ah oo ka yaabiyay ayaa waraaqada ka soo baxay maadaama waraaqada ay u qorneed waxaadna siisay dhammaan wixii aad haysatay taas beddelkeedana anaga waxaan hadiyad ahaan ku siinay shilinkan marnaba ha ka caajisin inaad caawiso dadka waxaana waraaqadan ku qoray marti xagga alle ka timid markaas ahaw mid naxariis badan oo hadana dadka caawiya sababtoo ah marnaba ma ogid xilliga alle uu ku imtixaani doono aada u mahadsan tahay haddii aan ugu cusub tahay nagu soo biir